badkala gobi ay oo yata gurina badkala gama lagu dhaqaayo gelu kuugu darara gurina badkala urda lagu gamayo gurina badkala gabadh lagu aroosa ubad lagu dhasha واسيدي واسيدي قلبك تهي مرياني قعروي والقيس كستبكاري وكيفكو هسيني الله واسيدي واسيدي قونا وانا قلنا يا أمتك قدوتا وقيني لكم حالتا قونا وانا قلنا يا بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلنتي وعن داود يا لمانتين باميل وليبواد جوكتان kuna soo dhawaada waraysi gaar ah oo aanu la yeelanayno madaxweynaha maamul goboleedka Galmudug Maxamed Axmed Caalin madaxweynuhu waxa uu ku sugan yahay magaalada Nairobi waxaana ku booqanay guriga uu ka degan yahay magaalada Nairobi madaxweyne Caalin maalmihii ugu dambeeyay waxa uu xaalada caafimaad u joogay magaalada Nairobi caasimadda wadanka Kenya madaxweynaha waxaanu ka waraysan doonaa xaaladiisa caafimaad dastuurka dalka Soomaaliya oo dhawaantan la ansixiyay iyo waliba sidoo kale doorashooyinkii ka dhacay magaalada Gaalkacyo xarunta maamulka Galmudug madaxweyne marka hore ku soo dhawow TV-ga caalamiga ee Royal Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wa mahadsantihiin TV-ga Royal dhamaan ummadda Soomaaliyeed gaar ahaan Galmudug waxaan leeyahay Ramadaan Kariim iyo meel kasta oo ummadda muslimka ah ay joogtaba arintaas si aad iyo si gaar ah ayaan idin soo dhaweynayaa madaxweyne aan ku hormarno xaaladda caafimaad maadaama aadamuhu waxyaabaha ugu muhiimsan caafimaadkiisa uu kamid yahay waxaad ku sugnayd magaalada Nairobi wixii ka dambeeyay mid kamid ah wajiyada dastuurka looga hadlayo oo magaalada Nairobi lagu qabtay xaaladda caafimaad ayaa dabcan dabiibaysay isbitaalada kala duwan ayaad gashay marka hore waxaad inoogu warantaa xaaladda caafimaad iyo waliba isbitaaladii aad tagtay natiijooyinkii aad kala kulantay bismillaahir rahmaanir rahiim horta hal isbitaal kaliya aan tagay halkii isbitaal ayaana arinta caafimaadka iyo aan kala xiriiray isaga ayaana maaragtay wax ka qabtay waa jirtaa aniga xogaa inaan xanuunsaday waa wax ilaahay keenay ilaah maaragtay igana daaweeyay haddana waa fiicanahay nasiino iyo waxaan ku jiraa hadda checkin dhawaanna waxa gurigay ayaan hadda joogaa waad arkaysaa oo in ay easy dhamaato si fiican aniga oo xaaladeedu ay fiican tahay waxaan hadda xanuunsan waxa weeye ilaahay baa xanuunka keena asagaana qaada shaydaankaan xanuunsan oo aanu shaydaan maahi marka ilaahay inuu dambi dhaaf iiga dhigayo ayaan ku rajo weynahay madaxweyne waan gartay dabcan haddii aad isbitaal tagtay xaaladaada caafimaad ay soo reynayso waxaad ii sheegtay in qaliin lagugu sameeyey qaliinka lagugu sameeyey muxuu la xiriiray dhinaca wadnahu la xiriiray waana iska yaraa marka waa lagu guuleystay maadaama wadna iyo maaragtay ama operation iyo waxyaabo saas ay jiraanba
in nasiina la qaato waa lagama maarmaan weeye. madaxweyne waan gartay waxaad ka mid ahayd saxiixayaashii wadada nabadda amaba road mapka meelo badan ayaa tagteen waatii ugu dambeysay shirkii ka dhacayay magaalada Nairobi aan isku aragnay oo aad ka mid ahay dadkii ansixinayay inkastoo markii dambe ergadii aad ka hartay sabab xagga caafimaadkaaga waxaad iga warantaa dastuurkii maanta waa la ansixiyay ergadii la soo xulay ayaa ansixisay waxaadna ka mid ahaydeen dadkii dadka faray in waxan la ansixiyo ka waran sida u aragtaa horta ma aan joogin waan ka mid ahay saxiixayaashii dadkii maaragtay arintan soo hirgeliyay ma aan joogin markaa magaalada Muqdisho oo ka socday hadda marka intii badneed 260 iyo xoogaa hadda isla qaadatay inta diidayna tira aad u yar ay tahay waxa weeye meesha loo bato wax oo hadda isdabooli kara labadooda ama hadal geli kara maba ahaba marka daan doonayna in wax la ansixiyo dastuur inaan yeelano ummadaan dalkan iyo dadkan inay yeeshaan ayagu ay ka doodeen 260 iyo siyaado 4-5 waa wax tira aad u yar ma aha waa tira aad u weyn weey waan gartay dad badan oo Soomaali ah dabcan dadku waxna way taageerayaan marka laga hadlo qaarna way ka soo horjeesanayaan qaar badan oo dastuurka ka soo horjeeda oo marar badan aan la kulanay waxay leeyihiin dadka xitaa saxiixay road mapka amaba heshiiska wadada nabadda oo dastuurkana uu kamid yahay iyagu qudhooda qodobada ku jira ma fahansano arinta sax miya waxa weeye qofka banaanka joogaahi waa qof banaanka jooga xisaabaadka iyo dalka iyo wixiisi dadka dalka lahaa waaya ayaka dadka hadlayahay dadkii la rabay inay ama dastuur ama sharci ama nidaam ama wax walba hagitaan ah inay sameeyaan markii wax la qabtana waa doodayaa marka kalena dibaddan ka jira wax ay shaqeynaya maaha Soomaalinimo la rabaa danta ay leeyihiin ayaga iyo waxa ay rabaan ayaan anaguba rabnaa dibadda inaan ku noolaano iska nasanno wax walba helno waa jecelnahay laakiin hadda qofkii wax tijaabiya ayaa wax gafa mudane madaxweyne aanu ka gudubno arrimaha dastuurka iyo arrimaha caafimaadka waxaan iminkan aanu aadaynaa dhankii adigu aad mas'uulka ka ahayd waxa tahay madaxweynaha maamul goboleedka Galmudug dabcan sanado badanna waad ahayd tan iyo intii aad ka maqnayd magaalada Galkacyo ee xarunta maamulkaada dhaqdhaqaaqyo badan ayaa soconayay waxa jirayay qorsho la sheegay in loo qabanayo doorasho waana tiiba hirgashay oo la qabtay doorashadii General Abdi Xasan Cawaale Qaybdiid ayaa madaxweyne loo doortay sida la sheegay arintaasi marka hore ka madaxweyne ahaan adigu sidee kula muuqataa ani arintaas ka madaxweyne ahaan arin sharci darro ah nidaamka iyo dastuurka ka baxsan ayay ila muuqataa hal madaxweyne kaliya ma waxa lagu dhawaaqay daraatana ninkala lagu dhawaaqay madaxweyne kale Maxamuud Cabdi ayaa asagana sidoo kale lagu dhawaaqay baarlamaan iyo ku dhawaaqeen gudoomiye baarlamaan iyo ku-xigeenno iyo madaxweyne ku-xigeen iyo marka arintani waxaan u arkaa arin sharci darro oo fawdo ah loogana faa'iideysanayay maqnaashaha aan ku maqanahay road mapka siyaasadii Soomaaliya iyo xanuunka ay dadka maaragtay xataa inta halkaan aan isku aragnay ama og dhihi kari waayay war madaxweynihii dalka bal waa xanuunsan yahay 10 bari aan sugno xaaladiisa inta maaragtay dhinac uun ay u baxayso ama uu howlgab noqonayo ama uu soo laabanayo dadka dhihi waayay waxa weeye waxay ka faa'iideysanayeen arrimahaas dad marka raba burbur inay ka shaqeeyaan Galmudug sidii loo aasayna aan la sheegi karin xumaan iyo dib iyo lugooyo moogiye
maalin keliya aan wanaag u qaban. mudane musharaxiinta tartamay kuwa iminka la sheegay in madaxtinimada ay ku guuleysteen iyo kuwa kale aad u tiro badan waxyaabaha ay inta badan diiradda saarayeen waxay ahayd in waqtigaagii uu dhammaaday. horta waqtigaagii gormo ku ekaa? waqtiga aniga wuxuu ku ekaanayay isbedelka rasmiga ah la rabay in la sameeyo kala wareega February oo ahaa labadeeda, laakiin January aakhirkeedu dhamaanayay. meeshaana waxa ka socdaa hal jufa ma aha Galmudug. soo socodka ugu dambeeyay arinta ay u muuqatana dhibaatadii soo dhex martay beeshaan jabka iyo halaaga weyn geysatay oo 95 ka dhex dhacday ayaa hadda gaalkacay loo soo wareejiyay. diyaarsan yahay inay dhici doonto. marka waxaan leeyahay Soomaaliya oo dhibaato badan soo martay oo hadda maanta Muqdisho aad arkayso in si xaraga loo marayo gaalka aan la rabay inaanu si xaraga leh oo wanaagsan uga gudubno, inaanan dadka dariska nala ah dhibaato aanan u geysan, anaga dhexdeena aanan dhibaato isku geysan, wax aan munaasib ahayn inay galaan beenna ka sheegaan wax loo baahan yahay ma aha. adiga raalli ah waqti badan ayaad madaxweyne ahayd, waxyaabo badan oo deegaanka dadka ka soo jeeda u qabatay maamulka ahaan oo aad leedahay dadkan cusub iyana doonaya in markooda ay wax qabtaan ma qaban karaan, ma inoo sheegi kartaa? horta anaa wax qaban kare cid wax ma qaban karto. horta hadal munaasiba ma aha. dadaalayna rabtaa laakiin 6 sano hadda dhisan tahay. war qofkani inta xagee ka soo galay wanaaga Galmudug iyo wax dhisideeda iyo wax abaabulkeeda iyo wax u qabashadeeda waa tijaabo way. qofkan maalinna wax wanaaga ku darsan, maalin kaliya wax wanaaga aan ku darsan, qofka iska maqnaa iyo qofka 6 sanadood. mudane madaxweyne shakhsiyaadka doorashada xilligan sheegay inay ku guuleysteen iyo kuwa kale iyana laga yaabo inay taageersan yihiin, dhammaan doorashooyinkii la sameeyay iyo tilaabooyinkii la qaaday adiga gadaashaa ma sharciba mise waa sharci darro si cad? horta talaabada la qaaday horta sideedaba guud ahaan ay xagga ka qaadeen waa sharci darro waaye. sababta oo ah markii hore waxay yiraahdeen guddi ninkan hadda madaxweyne ku-xigeenka waa loo magacaabay leeyahay Cabdisamed magacaabay. Cabdisamedna warqad qoraal ah uga tagay aan leeyahay khilaafaa jira madaxda sare maamulka iyo maaragtay baarlamaanka road mapkii arintiisii Ethiopia markaas aan u soconay ahayd aan aadaya intaan ka soo laabanayo wax lama magacaabi karo cid aan u wakiishan ma jirto. marka guddi baan magacaabnay yiraahdeen ciidan madaxweynaha ahayn waliba anoo warqad qoray oo iri lama magacaabi karo cidna uma wakiilan inay wax iska magacaawdaan. waan tan hadda waxa cadeynaysaa wixii arinta wada waa ku hadda yiri madaxweynaha ahay gudoomiyaan ahay madaxweyne ku-xigeenaan ahay ayagii waay haddana ama hanjabaadha ugu timaado oo meesha ciidana shaqeynay maleeshiya ama laaluusha ku timaadee. mideeda kale Galmudug beela badan ka dhaxaysa inaanu ku gudubnay ahayd 6 sano. waxaad ka dhawaajisay in hal beel oo kaliya maamulka dawladdu ay isku hareerayeen, beela badanna dabcan way ka kooban yihiin xitaa, laakiin marka adiga madaxweyne ahayd ninka madaxweyne ku-xigeenka uu ahaa gudoomiyaha baarlamaanka uu ahaa farqiga u dhaxeeya hadda oo la joogo oo iyagu dib loo soo celiyay iyo adiga xilligaagii maxaa farqi u dhaxeeya? waxa u dhaxeeya waxaan magacaabay oo jira wasiiro badan jiray oo lahaa mataqaanaa beelaha kale, laakiin xilli sidaan oo kale inta loo iskugu yimaado guddi ballaarinta la sameeyo markaas la dhiso
dowlad loo weysmaa waana loo ballansanaya ayagoo taa ka cararaya marka ayay midaan kale soo dhexgeliyeen marka waan gartay haddiiba aad sheegtay markii heshiiska la saxiixayay markii ugu horeeyay oo adiga iyo madaxweynihii xilligaasi aad isku hayseen jegada heshiiskan uu ahaa mid la saxiixay shakhsiyaadna aad sheegtay inay ka dambeeyaan ma laga yaaba hadafkoodu inuu ahaa in mar waliba madaxtinimada waqtigeeda aysan kasii fogaanin laakiin ay usoo dhawaato meesha waxaa la raadinaya mar walbaba runtii ma aha wax aniga ninkaas aan kala wareegaynaye kelmad markii la aasaasay kana fidnada waa wadeen qaarkood inay magaalada ka soo baxeen inaantii aysan dhicinan ilaahay horta ka rajeynaya inta aan joogana waxaan ilaalinayay inaan dadka dariska lagu dhicin inaan dadka gudaha jooga aysan isku dhicin inaan wax maaragtay caalamka iyo adduunyada inteeda kale iyo Soomaalida inteeda kale dib u keena inaanay dhicin cidkada ay xasuusan tahay inaan taageero soo dhaweeyaan jecelahay oo nabad ay ku joogto meeshaas arinta wada noolaanshaha diriska aanu soo laaban doonaa madaxweyne Caalin xilligan waxaad ku sugan tahay magaalada Nairobi wax kasto ha dhaceen qaab kasta ha u dhaceen gaalkacyo iminka madaxweyne kale ayay yeelatay sida doorashada lagu sheegay adigu marka inaad tanaasusho ma laga yaabaa mise waxaad leedahay weli madaxweyniga ahay qaab kasta aan ku tago magaalada gaalkacyo waan tagayaa horta kuwa joogaahi waa ka xumahay inaad ku noqonaysid madaxweyne kale yeelatay meeqa madaxweyne horta jirto ismagacaawda meesha la doortay hadda laba jirta musharaxiin kalena waa jirtay oo hadda taagan jooga marka bal horta aniga la gaaree soo ayagu horta inay gudihii jooga hadda inay isku tanaasulaan soo maaha oo wada fariistaan oo sharci iyo nidaam ay loo wada hoggaansanayaan ummadan kale hay inay isku raacaan anu marka ama haddii jaaliyada galmudug ee halkaa joogta oo nabadoon leh oo culimo leh oo wax kasta leh wax isku raacaan ayadan qaadanaya aniga waan gartay waxaan u fahmay haddii dadka deegaanka galmudug ay go'aamiyaan in aad isaga harto adigoo danta fiirinaya sidaad ii sheegtay iyo waliba haddii ay ku yiraahdaan adiga madaxweynihii wali waan ku wadanaa in labaduba aad ku qanci doonto labadaba waa ku qancayaa waxa way laakiin maanta anigu nin hadda qof u ordaya siyaasad kale iyo maaragtay meeshii aad wax ka sii noqotay ma ahi midda weyn ee Soomaaliya international community iyo saxiixayaasha iyo kulligood waa wada ogyihiin inaanan ahayn qof siyaasadda maaragtay waan gartay arinta galmudug haddii sidan ay soo bedeshay oo khilaaf dabcan la galay maxaad si leedahay waa lagu xallin karaa adigoo eegaya khibradaadii adigoo eegaya intii aad maamulka dabcan waqti laga soo bilaabo aad qabatay in khilaafaad fara badan ay jireen maxaa lagu xallin karaa ayaad si leedahay caalin ahaan waxaa lagu xallin karaa qabaa horta dadku ayagu inay isku tanaasulaan dadka dabka shidaaya inay ka dhacaan aan kula kaftamo adigoo raalli ah haddii gadaasha waxyaabo badan isbedeleen haddii aad go'aansato in aad tanaasusho oo dabcan maamulka galmudug oo eegaya danta shacabka sidaad ii sheegtay ma laga yaabaa dhanka iyo federaalka waxoogaa inaad ku laabato maadaama saaxiibo badan aad ku leedahay waa suurtagal waaye in midaan federaalka dee anu dalka waa u dhashay ama galmudug ha noqoto ama federaal ha noqoto meel kastoo ay tahayba dalka waa u dhashay inaan iska fariisto iyo inaan galo labadaba xaq aan u leeyahay dad badan oo dabcan deegaanka ka soo jeeda oo mas'uulka aad ka tahay ayaa ku daawan doono iyo waliba dad badan oo Soomaaliyeed dadka kale ee Soomaalida aan u soo laabano dadka maamulka aad u haysay deegaanadaasi ka soo jeeda adigoo eegaya khilaafka xilligan jira isbedelada jira maxaad leedahay aad baa u mahadsan tahay waxaan leeyahay Soomaali oo dhan iyo dadka deegaankaba waa walaalo haddii magaaladan maaragtay joohar gubanayso dhibku soo socdo midda kale waa soo gaaraya dadka ka soo taga
gaalkacyo dhib hadduu ka dhex dhacana jowhar waa gaaraya marka dhammaantood waa isku wada mid waa hal jir waaye halkaa jirna inuu isku tanaasulo wanaagga fiiriyo islaamnimada fiiriyo walaaltinimada fiiriyo sidii wanaagsan ee maanta loo socdo la isleeyahay qof walbaaba intuu ka tago jufada iyo qabyaaladda inta ka tago soomaalinimada iyo wanaagga inuu eego la isku tanaasulaan aad u jeclaalahay maasan tahay waa hagaag daawadayaal madaxweyne caalin aad buu maasan yahay dabcan waxyaabo fara badan ayuu ka hadlay waraysigeena gaarka ahana inta haynoo joogo waxaan idinla socodsiinayay anigu waa maxamed cusmaan cumar xabiib dhanka kaamirada waa sucaad mire iyo weliba mawliid kulana warsame waxaan dhammaanteen ba idinkaga tegaynaa sidaas lama sarta guudko layskuma garaace garashada mala garbasi mandokinoy garbasi mandokinoy garashada habone guurtidu sameeyena godobiya xumaanmaale galmudug nabad ku waarkaa kuule uga baryayna galmudug nabad ku waarkaa kuule uga baryayna gurmadkii amaankiyo inay nabadda gaadho gurmadkii amaankiyo inay nabadda gaadho galmudug